السلام عليكم ugu horeyn baan ku bilowno jumlada ahinaanu jirin qof garanaya waxa dhici doona mustaqbalka waxana garanaya qaybka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kaliya laakiin barnaamijkiinan maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa bar kamid ah qiyaasaha iyo saadaasha uu sameeyay musalsalka caanka ah ee The Simpsons qiyaasaha iyo saadaalinta uu sameeyay waxa jira qaar dhab u dhacay haddana waxa jira qaar kale oo uu saadaaliyay oo la filayo inay dhacaan sanadka soo socda ee 2021 laakiin ugu horeyn intaynan u gudagelin waxyaabahaas uu saadaaliyay ee dhici kara 2021 aynu wax yar ka iftiimino waxyaabihii dhab u dhacay ee uu hore u saadaaliyay musalsalkan kartoonka ah ee The Simpsons waxaana tusaale ahaan waxyaabahaas kamid ah saadaalintii uu sheegay inuu Donald Trump ku guuleysanayo jagada madaxweyne ee waddanka Mareykanka waxaana xalqadan la sii daayay 20 sano ka hor xilligaas oo Bill Clinton madaxweyne ka ahaa waddanka Mareykanka waxaanay saadaashan sameeyeen ka hor iyagoo jirin teleefanada casriga ah iyo xitaa ka hor dagaalka Ciraaq sidii dhacdayna 15 sano kadib waxa uu Trump soo sharaxay 2015 jagada madaxweyne sidaas aan ku guuleystay laakiin waxa la isweydiinayaa waxay tahay ma rumoobi doontaa saadaasha filimka ku jirta ee ah inay mar uun gabadh madaxweyne ka noqonaysa Mareykanka sidoo kale waxa uu musalsalkan saadaaliyay geeridii ku timi ciyaaryahankii kubadda kaliga laga dameyn jiray ee Kobe Bryant waxaana qiyaastiisaasi ku jirtay xalqadii soo baxday 2017 waxaana ku saadaaliyeen in isaga iyo gabadh uu dhalay ay la dhacayso diyaarad helikabtari waxaana arrintaasi dhab u dhacday 2020 kadib markii 3 sano laga joogay goortii ay saadaaliyeen inkastoo Kobe Bryant aanu dhimanayn dhacdada xalqada filimka ku jirtay haddana waxa cajiib noqotay qaabka ay u qiyaaseen dhacdada iyo sida helikabtartu la dhacayso sidoo kale waxa uu saadaaliyay dhaawicii ku yimid ciyaartooyga xulka Brazil oo ciyaaray ee Neymar iyo guushii weyneed ee ay Jarmalku ka gaadheen koobkii adduunka filimkan musalsalka ah ee The Simpsons waxa uu qiyaasay koobkii adduunka 2014 waxaana ay ahayd goorta uu saadaaliyay dhaawaca ciyaartooyga bishii saddexaad ee 2014 bilooyin yar kadibna waxaa dhaboobay dhacdada waxaana si aan laga filayn u dhaawacmay ciyaartooyga Neymar Jr kadibna ay si sahlan Jarmalku u dhaafeen Brazil ugu dambeyntiina ay ku guuleysteen koobkii adduunka 2014 sidoo kale waxa uu musalsalkan caanka ah saadaaliyay inuu soo bixi doono virus xuni iyadoo ay filimka ku jirto xalqada ay koox dad ah furayaan sanduuq kadibna uu sanduuqa virus ka soo baxayo sidaana ay dadku ku wada bukoonayaan oo xanuunku ugu wada dhacayo waxaanay sheegeen inuu viruskaasi ka dhigan yahay viruska adduunka maanta ka jira laakiin bushqada ay furayaan sida in leeyihiin waxay ka timid Japan ee maaha Shiinaha halka xanuunkan maanta jira ugu horeyntii uu ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha sidoo kale waxa jira waxyaabo kale oo uu saadaaliyay sida in video call dadku iskala hadlaan waxaanu saadaaliyay 1995 dhab ahaanna waxay u dhacday 2010 qaybta uu ku saadaaliyayna waxay ahayd seasonkii 6aad xalqadii 19aad saacadaha casriga ah oo uu saadaaliyay 1995 kadibna ay 2014 si official ah u soo saareen shirkadaha Google, Samsung iyo Apple waxaana ay ahayd qaybta filimka lagaga arkay saacadan casriga ah seasonkii 6aad xalqadii 19aad waxaana jira waxyaabo kale oo badan oo uu saadaaliyay haddana dhab u dhacay laakiin kuwaas aynu soo sheegnay ayaa ugu waaweynaa iminkana waxaanu isleeyaynaa bar kamid ah waxyaabaha uu qiyaasay ama uu saadaaliyay inay dhacayaan sanadka soo socda ee 2021 koobaad safarka gaaban ama waxa lagu magacaabo al-intiqaalu al-aani waana safar gaaban oo qaadanaya daqiiqado kooban isagoo qofku waqti kooban iskaga kala gooshay meelo kala duwan waana waxay maanta saynisyahanadu ku haminayaan inay daah qaadaan gudaha sanadka soo socda ee 2021 waxaana dadka ku xidhan musalsalkani arkeen isagoo hoomargalaya aaladan kadibna ka soo baxaya meeshii uu ka tagay meel aan ahayn isagoo adeega ku bixiyay $2 oo qarasha waxaana yaab iyo ama ka ku noqotay shucuubta ku xidhan filim kartoonka markay maqleen in saynisyahanadu baarayaan doonayaan inay hirgeliyaan aaladan sheyga labaad ee uu saadaaliyay waxay tahay inay gabadh markii ugu horeysay madaxweyne ka noqonayso waddanka Mareykanka inkastoo la wada og yahay inaanay Mareykanka soo marin gabadh madaxweyne ahi haddana waxa ka soo muuqday qaar kamid ah xalqadaha musalsalka in madaxweynaha Mareykanka ee soo socda ay gabadh noqon doonto waxaana la arkay iyadoo goob fagaar ah ka jeedinaysa khudbad kulaneed waxaanay magaca haweeneyda ka dhigan magaca inanta uu Trump dhalay ee Ivanka Trump inkastoo aanay musharaxad ahayn doorashadan 2020 haddana waxa uu qiyaasay una saadaaliyay inay madaxweyne ka noqonayso waddanka Mareykanka sheyga saddexaad ee uu saadaaliyay inuu soo bixi doono 2021 waa gaari duulaya mid kamid ah xalqadaha musalsalkan waxa ka soo muuqday Homer oo ku safraya waqtiga inta kadibna isagoo ku guda jiray safarkiisa waxa uu arkay isagoo saaran baabuur duulaya arinta la yaab kale waxay tahay in gabadhada duulaya ay yihiin mashruuc la rajeynayay inay soo baxaan sanadka soo socda ee 2021 waa sida khubarada ka howlgalaya sheegeen waxaanu filimkan musalsalka ahi waqti hore sii qiyaasay inay baabuurtani soo baxayso iyagoo gabadhadan qiimahoodu noqon doonaan markay si rasmi ah u soo baxaan inta u dhaxaysa $1.2 ilaa $1.6 milyan
sidoo kale waxaa jira waxyaabo qiyaasay ama saadaaliyay inay dhacayaan sanadka soo socda ee 2021 waxaana kamid ah in guryo laga samaysan doono badaha hoostooda inkastoo la sheegay in qarashka ku baxaya uu qaali yahay haddana waxaa Japan bilowday mashruuc lagu magacaabo in Ocean Spiral oo lagu sameynayo magaalooyin biyaha hoostooda waxaana laga yaabaa in sanadka 2021 uu mashruucan hadalhayntiisu badato howlgalkiisuna bilowdo mar kale waxaan ku celinayay inaanu jirin qof ama cid garanaysa waxa dhici doona mustaqbalka waxaana qaybka iyo waxa soo socda garanaya Allah subhanahu wa ta'ala balse kaliya anagu idin soo bandhignay idin wadaagnaynaa macluumaadkan anagoo rajaynayna inuu madadaalo idin noqdo dhanna aad kala baxdaan wixii wax tara haddaad ka heshay muuqaalkan like taabo subscribe na saar haddaad nagu cusub tahay si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe soo galina